iyadoo dhowaan ay komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland ku dhawaaqeen waqtiga ay dalka ka bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada soo socota. waxaa jira dadyow, ururo, deegaano iyo daneeyayaal si weyn u saluugsan waqtiga loo asteeyay bilowga diiwaangelinta. haddaba ururka midnimada iyo horumarka ee horseed oo ka dhisan dalka UK oo ay ku midoobeen qurbajoogta ka soo jeeda bariga saaxil, gobolka Togdheer, galbeedka Buuhoodle iyo galbeedka Sanaag iyo sidoo kale gobolka Saraar, waxay si weyn walaac uga muujiyeen waqtiga bilowga diiwaangelinta iyagoo ku dooday duruufo iyo xaalado adag oo soo wajahay dadka deegaanadaasi oo waqtigan hayaan iyo geedi dheer ku jira. baaq dheer oo ay soo saareen xubnaha ururkaasi oo xarunta warqabadka TV-ga Sahan uu soo gaadhsiiyey afhayeenka ururka horseed Mudane Yuusuf Googooye ayaa u dhignaa sidan: ku xukuumadda Somaliland, ku komishanka doorashooyinka Somaliland. sida aan la soconno, komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland waxa uu dhowaan ku dhawaaqay isla markaana mudeeyay xilliga iyo waqtiga la qabanayo diiwaangelinta guud ee ka dhacaysa dhammaan gobolada Somaliland min bari ilaa galbeed. hirgelinta diiwaangelinta dalka oo dhan ka dhacda waxay hordhac u tahay doorashadii golaha deegaanka iyo wakiilada oo iyadana la filayo inay dalka si dhaqsa uga qabsoonto insha Allah. haddaba waxaa hubaal ah in haddii diiwaangelinta si mug iyo miisaan leh loo wada qaato ay markaa ka dhigan tahay in doorashada soo socota ay iyaduna si fiican oo nidaamsan dalka oo dhan uga qabsoomi doonto. sidaa daraaddeed guud ahaan waanu soo dhowaynaynaa hirgelinta diiwaangelinta dalka oo dhan si fiican uga qabsoonta, waana tallaabo fiican oo dhinaca horumarka loo qaaday. haddaba waxaa runtii la yaab leh oo dad badan iyo gobollo badan oo Somaliland ah amakaag ku noqotay in la soo saaray waqtiga kama dambaysta ah ee diiwaangelintu ka dhacayso gobol kasta oo Somaliland ah, iyada oo dowladda iyo komishankuba ay og yihiin in ay jiraan duruufo adag oo ku xeeran ka qabsoomidda diiwaangelinta waqtiyada loo cayimay deegaanada qaarkood. sida la og yahay, waxaa jira dad aad u badan oo deegaanadoodii ka barakacay ama ka maqan abaaro ba'an oo dhulkaasi ku habsaday darteed. haddaba sow sida saxda ahi ma ahayn in dowladdu daraasad samayso islamarkaana tixgeliso duruufaha dadka ay xukunto haysta, ayna sii ogaato in wakhtiga ay u cayintay diiwaangelintu aanu gobollada qaarkood sina uga suuragal ahayn. sababta oo ah waxaa jira dhul aad u ballaadhan oo dhammaan dadkii degganaa ay ka hayaameen oo aan goobihii diiwaangelinta loo cayimay cidiba joogin. annaga oo ah ururka midnimada iyo horumarka ee horseed UK islamarkaana ku hadlayna magaca guud ee qurbajoogta reer UK ee ka soo jeeda deegaanada hoos ku xusan bariga saaxil, gobolka Togdheer, galbeedka Buuhoodle, galbeedka Sanaag, gobolka Saraar, waxaanu halkan ka caddaynaynaa in dadkayagii deegaanadaasi degganaa ay ku kala hayaameen dhulal aad uga fog meelihi ay degganaayeen, sida xuduudaha Somaliland la leedahay dalka Soomaaliya iyo weliba deegaano ka tirsan hawdka fog ee kililka shanaad ee Itoobiya. sidaa daraaddeed aanay sina suuragal uga ahayn in diiwaangelinta ka qayb qaadan karaan wakhtiga loo cayimay. sidoo kale aanay suuragal ahayn inay ku soo noqon karaan goobaha diiwaangelintu ka dhacayso wakhtiga loo qoondeeyey. sababaha iyo duruufaha aanu kor ku xusnay darteed waxaanu xukuumadda Somaliland iyo komishanka qaranka Somaliland si wada jira uga codsanaynaa inay dib u dhigto wakhtiga loo cayimay, islamarkaana ay cayinto waqti macquul ah oo ku habboon, iyagoo waqtiga cusub kala tashanaya cuqaasha iyo salaadiinta iyo sidoo kale waxgaradka kale ee deegaanadaasi ka soo jeeda, lana qabto waqti la og yahay in dadkii deegaanadaasi ay goobihii diiwaangelinta ka dhacaysay ay ku sugan yihiin. allah baa mahad dhammaanteed iskale. maamulka ururka horumarka iyo midnimada ee horseed UK London. baaqa iyo codka dheer ee ka soo baxay ururka horseed waxa uu hordhacu yahay walaaca ay qabaan bulsho badan oo dareemaysa xaaladaha ku gadaaman dadka la rabo inay isdiiwaangeliyaan. maxamed mataan gabalaax maxamed mooto, wararka telefishinka Sahan.